اوكي هذا عقارة ما سيدا لو سمي partition معناه هو هي partition هاي ديسكادا اما ديسكادا هاي ان لا kala qaybiyo marka la qaybinayo kaliya qasab maahan high diskaada maxaa qaybin kartaa flashkaada maxaa qaybin kartaa external high diskaada maxaa qaybin kartaa internal high diskaada marka aan qaybinayno partition ama aan sameynayno qayb macnaheedu ma aan iska qaybinayno ujeedadu waxay tahay in computerkaada uu kala yeesho qayb u diyaarsan markas in la haleyn karo iyo qayb data safe ah maxaa u jeedaan salahan haddii computerka anaga virus u galo sabar ha soo qaato hadduu virus computer ku dhaco waxaa local disk sii yaallo way guban doonaan kulligood oo way halaabi doonaan lama halin karo laakiin waxaa kuu yaallo partitionada kale ee tusaale ahaan aniga kuwaa samaysan oo kale new volume-kan hb tooliskan iyo temporary-gan waxa ii yaallo waa la badbaadin karaa laakiin waxa meeshaan local disk sii noo yaallo ma badbaadin karo in aan partition sameyno waxaan ugu qasbaysa waxay tahay maadaama berri aan sameynayno inaan window installation sameyno mar kastoo computerkaada window ka tirtiri doontid partitionka aad samaysay ama qaybta kuu samaysa data safe ku qoro ama waxaad ku qoraa qeyr leh xogta aad u baahan tahay ha kuu taalo xog kaste oo taalo local disk c lama badbaadin karo okay local disk c yaa ka mid ah waxaa ka mid ah desktopka waxaa ka mid ah user fileska waxaa ka mid ah cycle big markan dhammaan hadda fiiri computerkiga aan furo salaan cycle big-kan waxa ku jiro haddii hadda computerkiga uu laga tiro ayaan raacaya okay aan tago control panel-kayga dhammaan applicationada ku jira control panel-ka way raaci doonaan marka la tirtiraayo waxa loo yaqaano window-gan fahmaysaa ayadana way bixi doonaan ayaga waxaa dhow bixi doonaan marka inaad partition baratid sababta kugu qasbaysa taas ayadii waay mar kastana waxaa ku fiican computerka inuu leeyahay wax local disk c ka badan macnaheedu maxay tahay qayb kale oo data safe ah xogta ku taali karto marka la sameeyo partition ama waxa loo yaqaan qaybinta see loo sameyn karaa kow window ay isticmaaliisa ku xiran tahay windows muxuu isticmaalaa computer tanka muxuu isticmaalayaa this pc iyo window 8 kaba noocu yahayba qaybtan right click ku dhig waxa ku leedahay right click kadib maxaa leedahay manage halkaasa maxaa leenahay manage ayaan leenahay markay noo soo baxa qaybta loo yaqaano computer management loo yaqaano markaan joogno qaybta hoos maarata ay ku qorto storage waxaan ka tagnaa qayb loo yaqaano disk management halkana click ku sii markaa disk management click ku sii waxaa soo bixi doona diskada computerka lahaa c e hb tools temporary walaay feeri qaybta caadigeed bal intaas leeyahay sagan aye c hb tools new volume temporary sumarkiisi marka hadda waxaan u baahanahay inaan ku soo kordhiyo anada partition ama qayb kale soo maahan okay ku soo laabo midka partition ka sameeyay marka horta partitionku wax banaankiina ma waxaan alla fiimanay ma waa hay diskaada wax laga soo qeybiyo ama laga soo jaray intaan haysato keerata in laga jaro masiya laga jaraa ma iya laga jaraa hajbitus laga jarnaa mise f laga jarnaa tibnooriya waxaan ka jaraynaa sida ama ka jacayshayga khayr midka jacayshaygu same way laakiin hadda aniga ma kuwiga aniga aan kala computerka leeyahay kan maxay free 9 GB kan maxay free 127 GB kan maxay free 4 GB samaan mid ka raad aari kara qaadaysa kaaratid waa isticmaali kartaa markaad samalo qaadano sida dalimo right kale ku dhig ila soo aan ku sida right kale ku dhig kadib maxaa leedahay shrink value qaadaysa hay kale ku soo shrink value okay shaqo way doonaa intuu shaqadan wada okay aanta waxaan soo ogaanay marka soo saari rabno shayga MB hana wax cadeynayno aan u socono GB waxaana inta GB ga lagu sheegay waxa ku rufataa halkii GB inta la mid aha salaad hal GB wala mid ah ku laatan FMB sama hada anu ma baanahay 5 GB sama 5 GB lagu dhuftay ku laatan FMB maxay noqon doontaa marka waa 5100
labaatan marka fiiristaadu kan wax laga bedeli kartid kan wax laga bedeli karo kanna wax laga bedeli karo kaliya maxay tahay inta amount space unbaa wax ka bedeli karnaa fahmina ayaa qorna 5120 aan gelina marka maxaa leenahay shilling okay marka inta marayna fiirso meesha waxaa ku soo kordhay 5 GB somaa laakiin banaanka ka fiirinaba bal refresh leh wax usmayeen wax usmaan taasha ku harta waa inta usmaan C iyo D iyo usmaan okay marka inta maxaa ku qoran fiiri asma ka qoran unlocated somaa sababtoo ah location malhambo cell location loo soo dhigaa banaanka loo keenaa right kale kule maxaa leedahay new sample value next leh meeshaan haddaa rabto bedeli kartaa maxay tahay waa hadhowda letter soo muuqanaya hadda kan muxuu wataa letter C soo maahan kan muxuu wataa kana letterka uu qaadanayo waa bedeli kartaa hadda maxaa saaran G soo maahan iska bedel u saadaa jeceshahay next leh waxaan ka laha bedelin next leh finish bal hadda fiiri markay banaanka maxaa kusoo kordhi doona refresh ka dhe iska yar wax soo furmi doona maxaa soo kordhi new value new somaan qaabkaas maxay tahay waa qaabka loo samaysto new partition inta aanan baran sidee partition loo tirtiraa waxaan kaga faa'iidaysanayaa sideen partitionkan magaca ooga bedeli karaa lan new value waxaas furmaa soomaa waa inaan qoran karaa safe waa inaan qoran karaa important waa inaan qoran karaa hebel somaa waa taqaana taas right click leh kadib maxaa leedahay name waxaa jeceshahay ku qor marka waxaa jeclad adigu ku qoran data safe ku qoraadi sookis data enter leh muxuu weydiinaya you will need to provide administration permission okay continue doonka waxaa kaloo sadhin anahay continue muxuu qaatay data safe taas maxay tahay waa qaabka magaca looga bedeli karo somaa hadda waxaa baratay sida loo sameeyo sida magac looga bedelo su-aasha kale waxay tahay partitionkan haddaanan u baahnayn salaada fir aniga unbaa partitionkan meesha inuu spaceka ay sii maqnaado ma rabo soo maaha see usoo celin karaa hadda kana qawaya firi fartan ladayma ku ahaa haddii marka anigi aan u baahnayn maxaa si aqsanaa qiimeyga maxaa soo maaha haye see loo baabiyaa fiirso inta imow partitionka abaabinta u imow fiirso midka abaabinaysid u imow right kale ku dhafirso waxaan ku leedahay right click kadib maxaa leedahay delete value waxaa leedahay yes okay hadda muxuu yahay hadda bal fiiri kan kusoo laabatay tusaalahaan refresh kale bal value-gu maqayso maaha waxaa sheegay partitionku maqan yahay laakiin qiimi fiiri weli qiimi maqayso maaha weli afartan laba GB waaye maxaa maqan okay inta imow kii aad ka soo jirta koodii hore u imow right click ku dhe maxaa leedahay extend value waxay tahay qiimi hore soo cesho next finish bal hadda kusoo laaba qaybta gudaha refresh dhe ayaad ma noqday qaabka loo baabiyo iyo qaabka loo sameeyo